galabta magaalada Dhuusamareeb annagoo joogna waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa annagoo ah murashaxiinta kale ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Abdullaahi Weliye Faarax iyo murashax Kamaal Daahir Xasan Guutaale iyo murashax wakiil murashax Abdullaahi Axmed Abdileere waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa waxaad ogtihiin in 7 bilo la soo dhaafay ay ka socotay magaalada Dhuusamareeb sidii dib loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka Galmudug waxaa xusid mudan in dowlad goboleedka Galmudug 4 sano ka hor markii la dhisay ay ahayd markaan inay ayada shaqadeeda qabsato laakiin cadaadis ka yimid dowladda federaalka ah 2 sano ugu dambeeyay dowlad goboleedka Galmudug waxa uu qabateen saaray dowladda federaalka ah si ay dana ayada gaar ah u leedahay uga fushato markii ugu dambeysana waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne Xaaf iyo maamulkii Ahlusunna wal Jamaa ay gaareen ayaan daro dowladdu waxay uga canbanaanaatay in ay processkii afduubto muddo dheer waxay ku guuleysatay inay madaxweyne Xaaf iyo maamulka Ahlusunna labadoodiba mid walba sidiisa u dhibaatayso waxaad ogtihiin ayadoo maamulka Ahlusunna halkan ku soo dhaweeyay heshiis la galay in dawladdu ku dhawaaqdo tiri heshiisku been buu ahaa sidii aan Dhuusamareeb ku tagi karnay baan ka fakaraynay oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyay ay ka baxeen murashaxiinteenan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dib u dhiskiisa baaqiyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaaya in guddigu uu ahaa dawladdu ay soo saartay guddi farsamo guddigaas oo wada ahaa shaqaale dawladeed oo aan isla markiiba ka baaqnay guddigaas oo markii koowaad ba lagu dhisay rabitaanka filla Soomaaliya iyo xafiiska prime ministerka wuxuu ka shaqeeyay in processku uu aad iyo aad u daba dheeraado waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee la soo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka dadka xildhibaanada doonka ahay iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba guddigaas dhibaatadaas intaas la egeystay weli wuxuu ku sii indha adag yahay iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka Galmudug duruufihii la soo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo la soo saaray wax dambi ay leeyihiin xildhibaanada la soo saaray male duruuf aad iyo aad u adag yay soo mareen ilaa haddana ku jiraan waxaad ka warhaysaan inaysan xildhibaanada la soo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka hoolka baarlamaanka ku meel gaarka waxaa dhibaato ah oo ogtihiin in dawladdu ay ka shaqeynayso weli guddigeedin uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka waxaa wax aad iyo aad loola yaabo ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka waxaa isweydiinay marka oo galabta shirkan jaraa'id ka mid ah sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyay ID kaarka haddaan la siinin albaabka ciidanka joogaan ee ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxtooyadu soo iskama celin karaan qof kale beenana ma gashan karaan xildhibaanada waxaan codsanaynaa number 1 berri waqti aan ka dambaynin waa inay helaan budget ADs ay ku gali lahaayeen hoolalka shirarka ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaanku inuu xasaanad leeyahay hoolka uu rabana gali karo shalay galab saaki xildhibaano ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyay barta controlka magaalada laga soo galo kaarkooda ay la baxeen ciidanku waxay yiraahdeen anaga ma naqaanee wasaaradda amniga ha laydinka soo waco macnaheedu waxay tahay magaalada aan la soo gelin annaga sidaan rabna aan ka yeelnay maxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo shirkan jaraa'id waxaan u qabanay processkii wax allaale waxa la soo haleeyeen wixii odayaal cabaadood arkaydeen wixii xildhibaano la dhibaateeyood arkaydeen wixii wax la isdaba mariyood arkaydeen waxaan ku qanacnay in processka xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oo ayaga la heshiin waxaan codsanaynaa in horta guddiga farsamada ee dhibkaas ka soo shaqeeyay maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dawladdu ku celiyo gaar ahaan xafiiska prime ministerka waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keenay oo Yaxya Ali Hariiri leeyahay afduubka ugu badan ninka processka ku haya
وصاحبك يحيى عدسنينا دولة كعدسنينا si shakhsi oo codsanayna inuu faraha kala baxo baarlamaanka hadda inta wixii ka dambeeyay wuxuu falki kara waa falki waa mahadsan yahay faraha kala baxo waa koow labo waxaan codsanaynaa in xildhibaanada la siiyo kaararkooda sida ugu dhaqsiyaha badan leh saddex waxaan codsanaynaa in baarlamaanka guddoonka doorashada guddiga uu saartay loo madax banneeyo inuu doorashada asagu maamulo waxa ka warhaysaan oo aan ku soo khatimayaa in baarlamaanka doorashadiisa la yiri waxay dhacaysaa maalinta jimcaha إلهي وحو قرآن كوير يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني عسيق هلا قتكم مال أنت الجمعة ذكر إلهي هلا قبته يعني عسيق وحا كم ذا ذاتك السياسة ده هو حي كشقيان سياسة ده هو الدكامة ده وحي كشقيان دكامة شقة هلا جوجي هاد وحن آدي هذول يا بنا وحا قلبت الجمعة الله قمني أيضا اللي هي اللي كرسوا حسبتك أنا لقبته دور الشذا عن عدسنا هنا إن دور الشذا سوا حسبتك أنا لقبته أدي إلهي هذا